deegaanka Gambare ayaa waxaa dadaal loogu jiraa sidii uu heli lahaa xarumo caafimaad iyo goobaha waxbarashadana kor loogu qaadi lahaa. Dhakhaatiir iyo odayaal iyo qurbo-joog iskaashanaya ayaa waxay geeyeen deegaanka Gambare injineer soo qiimeeya xarunta caafimaadka ee deegaankaasi laga hirgelin doono. Waxaana odayaasha deegaanku ay ku deeqeen dhowr iyo 20 lood oo dhagaxa dhul iyo niis ay ugu talagaleen in looga dhiso xarun caafimaad. baahida xarun caafimaad ay u qabaan dadka deegaanka Gambare ayaa waxay tahay mid muhiim ah in kor loogu qaado caafimaadka. iyadoo haatan lagu jiro xaalada abaara ayaa waxaa deegaanka si weyn ugu soo badanaya dadka soo guurtada iyo dadka deegaanka kuwaas oo ay muhiimad gaar ah u leedahay in hooyada iyo dhallaanka ay helaan goobo ay ka qaataan daawooyinka iyo nafaqada gargaarka ay hay'aduhu bixiyaan. iyadoona ay dadku haatan xaalada abaara ay ku jiraan ayaa waxa ay doonayaan in dhan kasta laga qayb qaato gaar ahaan caafimaadka oo muhiim ah iyadoo haatan lagu jiro xaalada abaareed oo aad u adag. Gobolkaasi waxaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka waxayna soo dhaweeyeen MCH kaasi in si degdeg ah wax looga qabto sidii loo dhisi lahaa. waxaan dadka faraynaa Ilaahay cabsidiisa wixii khayraad oo maartay samafala dadku mar hadduu islaam yahay waa shay sharci ah in maartay la bixiyo oo meelaha khayraadka wax lagu bixiyo wama anfaqtum min shay'in فهو يخلفه وخير الرازقين. إلهي وحي روحي عاد بحسان أو شيء أو ليدين دوا مرين ماشي وحكا سو صارتين ميل مارتي خير باليدين دوا مرين إياه إلهينا سبحانه وتعالى وإذن كأبال مرين إياه بولي هاي مركا وحوي ودتك وانا وجود عيننا وانا فرينا وانا كلا قيب قاضننا وانا كسر دويننا إلهينا مقبولها كردقو سبحانه وتعالى عدي كستو مارتي وحكا قيب قاضن كرتنا وسر دويننا يعني انت اسبان مارتي كسو غبغبين الله وبالله توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وين سلامنا دمان dadka meesha isugu yimid saxaafada iyo tiktoorka iyo injineerka la socdayba waxaanu bixinay dhulka kan dhul loogu tagay inay dadka dhakhtar looga dhigo dhagaxa iyo awoodda dhagaxa iyo dhulkii ayay ahayd waxaanu dadka walaalaha iyaga ah noo soo gargaaraya yiri waxaanu dhisaynaa iyagana waxaanu ku bogaadinaynaa wixii naga dhiman inay noo dhameystiraan dhulkuna waa dhulkiini dadkuna waa dadkiini baanu iyagana leenahay waxa loo baahan waa dadkiini dhulka looga baahayna waa dhulkiini waana idinku wixii ka dhinma waxaad qabataan iyo waxaanu qabanay iyagana inay uga wada shaqayn lahayn waanu in ku soo dhaweynayna waana in kala qabanayna dhulkiina waanu bixinay oo dhulku cabirkiisuna waa kaan idin sheegay oo iyo ka badan ba hadii dhaqaale loo helo uu ka badan yahay dhan walba uu naga xigaa dhagax yaalina waa dhowr iyo 20 lood maalintii horena waanu idin soo sheegnay haddana waa aragtaan uu yaala niistii waxba ka yaal baahiduna waa mid horena u taagnay haddana taagan marka waxaan leeyahay walaalayaal noo soo dhaqsado oo wixii aad haysaan iyo wixii aad qaban karaysaan ba noo soo dejiyo waqti adagna waa lagu jira baahidina waa sii kordhaysaayo meesha dadkii waa soo degayaayo abaarihii baa ku soo ururiyadu annaga iyo dad kaleba waa ku dhibaataysanahay marka loo eego caafimaad ahaan iyo goob caafimaad la'aanteeda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi raxiim. anigu waxaan injineerkii meeshan goobtan la keenay oo diyaarin lahaa dhisaynka MCH-ka dhisaynkaas oo noqon doona 20 mitir oo square ah oo aan markaa isniri awoodda marka dadka markaa wax bixinaya intaa hay'ad ku taakuleeyeen qiimihiisa oo hadii la ka dhigayo aanu soo qiimeyn doono iyo dhisaynkoon isku soo lifaaqi doono baanu hadii la ka dhiga diyaarin doonaa intaasaanu hadaan anigu hay ka baxaya xarun caafimaad waliba MCH in looga dhiso ay dadka deegaanka ugu tala galeen una baneeyeen una asteeyeen meesha iyada ah hore waad ogeydeen oo markii horena ka hadalkeedii iyo wixii ribooda waanaga idin soo gudbinay maantana waxaanu keenay ninkii injineerka ahaa ee cabiri lahaa dhulka isla markaasna soo qiimeyn lahaa wixii gelaya meesha iyo dhisaynkii dhismuhu sidii uu muuqan lahaa wixii qaaba iyo qiimayna waxaanu u daynaynaa injineerka isaga soo gudbinaya waxa go'aankeenu ahaa inaynu isku tashanno dadkeena dayacan ee ku nool deegaamada aynu
degno inaynu wax u qabanno oo aynu go'aankeennu aynu isku tashanno teedii hala fuliyo ama dalaynu joogno ama gudaha aynu joogno. Cabdikariin Nolol, magaalada Laascaanood.